uqaasha waxgaradka waayeelka haldoorka iyo dhalinyarada iyo haweenka ku loon degmada Kalabeydh ee gobolka Sool ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo shaqaaqa ku dhex martay magaalada Buuhoodle iyo deegaano hoos yimaada ayna ku dhinteen dad tiradoodu gaadhayso 3 qof waxay ugu baaqeen waayeelka haldoorka indheengaradka dhalinyarada haweenka labada beelood inay u istaagaan sidii dhibka dhacay aan dhib kale looga dabagayna una dhagan lugnaan lahaayeen ergooyinka soo gaadhay ee u soo gurmada waxaana ka mid ah hadallo gabay nabadda ku saabsan oo uu tiriyay abwaan maxamed bootaan cabdillo loo yaqaanay boodla bootaan baa mar uu ka hadlayay nabadda wuxuu yidhi garaada iyo nabadoon shirka oo garangar loo buuxo nin colaad guddoonshow waxbaba waadan garanayna intoo guuldarro leedahay baan goobta ka cadayna guri ololay daabiyad la gubay geel la kala qaaday nin garbood la dilay iyo barbaar gowrac lagu taagay gabadhaada iyo kay dhasho goofka lagu awday dumarkoo gambacad iyo agoon gaajo ladi weyday geelaaga iyo baadidaad gooban kari weydid gobolkii aad tagtidoo hurdada godob lahayn weydid gogashoo la kala qaato oo qoloba gees aado goblan iyo fakhri iyo cadaab iyo bele gadaal joogta intaasoo guuldarre leedahay geliya laabtiinna war intaasoo dhibaatay colaadu leedahay waa degmada Kalabeydh dhammaan waxgaradka iyo haweenka waxay saacadan wax u taagan yihiin shaqaqada ka dhacday guriga la yiraahdo ilmo dandan ilaa Buuhoodle ilaa hidla ka dhacday waa arrin aan la qaadan karayn waa arrin walwalkeeda leh waxaanu leenahay walaalayaal waxa la yiri taladu waa marad haysiyo marad gaari weydin taladu maanta waa dhowdahay waa 2 iyo 3 waa la qaban karaa waa mid iyo 2 waa meel dhow waa meel laga talin karo waxaan leeyahay taladaha ayaan baxsanin taladu yeen duulin hal lagu gacmo adaygo gudbinayno walaalahayo oo cid noo xiga oo dil ku dhex maray meesha galbeedka wixii Buuhoodle ka sokeeya waxaanu leenahay walaalayaal dhibaato annaga soo aragnay dhibaato ballaaran annaga soo aragnay intii dambe waxaanu ka tiiraayoonayna dhibaatadii aanu soo aragnay iyo dhibkana gaaray iyo waxan guriga baay aanu maanta aanan waxba ka hayn yaanu aragnay waxaanu baaqa idinku diraynaa inaad joojisaan colaadda wax yar bay maanta maraysaa sida yadii kale annagu markii ay wax yar maraysay waxaanu garan weynay inaanu joojino wax ilaahay watana way ahayd maanta meesha aanu joogno waad ka warhaysaan idinkana taasaanu idinka digaynaa taa u soo baxnay haddana degmada Kalabeydh nahay odayaal iyo cuqaal iyo waxgarad iyo haween iyo dhalinyaraba inaanu maanta baaq nabadeed u dirno walaalahayo dandan soona Buuhoodle higla ka dhacday aaga shaqaqad ku dhex martay ee dhimashadu 3 qof hadda marayso waa wax la demin karo waa wax la dhamayn karo waxaanu leenahay 3 insha Allah Ilaahay inuu nagu dhaafin min rajaynaa ergooyinka ugu horeeyna waan soo dirno way idin soo gaareen daafaha dhulbaanto dhanna waa laga imanayaa ergooyinka u qabsooma hawsha 3 inaga damiya waanu u jeedinayno walaalahayaga iskaga dhinteen 3 nin Buuhoodle ilaa wirwir inta u dhaxaysa waxa weeye 2 iyo nin baa la kala joogaa ciidan la isu humo iyo hadii Ilaahay gurmad iyo muusanow dumar dhibaatadeeda khayr cabdi iyo bahar sama arkay inaad ku waaya qaadataan baa la doonayaa maalintii dhaweed waxaa noo yimi habar yoonis iyo ciida gale labadii reer ee ugu dhibaatada ugu badan ka dhacday Soomaaliya oo iyagu erga wada ah waxaanu teergareynaynaa bahar sama iyo khayr cabdi iyagoo erga wada ah oo baabuurta wada fuushan inay idin yimaadaan horta waxaan u taagnoo baaq u direynaa walaaladaya isku dilaya meesha la yiraahdo dandan iyo aageeda waxaanu leenahay walaalayaal nin kale baa laga wareystaa 15 sanadood baan colaad ku jirnay khasaare mooye faa'iido kama aanan gaarin maanta waxa qoraxdana nusbay jacaylka aanu idin qabno iyo dhibaatada soo yeelatay inaad damisaan haddaad tiin culimo haddaad tiin garaado haddaad tiin waxgarad dadka Ilaahay yaqaana hawsha ha dhex galo waxaan leeyahay godnin galay baa laga wareystaa waxay la tahay baha khayr ayaa maanta haya waxa ay leedahay dhibaatadu ama dagaal ay leedahay waxaan gabaygiiba ku soo ururiyay abwaan aadan waxaan leeyahay nabad baa naas la nuuga leh ilaahay idinku dhibaato wali ma idaan arag nin iyo labaad ka hadlaysaan annaga dhibkana gaaray bila aadan uu gaaray uu yar yahay
waxaan idin leeyahay hala joojiyo dagaalka bilaa shuruud dhibaatada hala joojiyo walaalahayow waad aragteen dhibaatadana gaadhay wiilashayaadi waa dhinteen oo nimankayga waa dhinteen oo ilmaabtiyadaya waa dhinteen oo raggayga wuu dhammaaday oo gabdhihii baa la laayay oo dhibaatadana soo gaadhay aanu iska laynay annaga iyo walaalahayaga aanu iska laynay waad ogtihiin shalay waa idinkii nagu lahaa dhibaatada joojiya idinkuna maanta caqligu ha shaqeeyo ee dhibaatada joojiya wixii na soo maray annaga guri ma hayno oo reer ma hayno oo carruur ma hayno oo bacad baa dadkaygii tuban yahay annagaana istubnay idinka waxaan idin leenahay walaalayaal waxaan idin leenahay dhibaatada joojiya oo caqligu ha shaqeeyo oo xabadda dhiga oo qoriga dhiga oo tolka u qabsooma oo Soomaali waa inuu qabsooma oo ka heshiiya dad walaalaaba tihiin sida iyadoo kale ka heshiiya afartii cashaanu seexanay oo nabadina soo gashay oo barwaaqaanu aragnay nabad barwaaqada leedahay wada tihiin war joojiya dhibaatada khadar tarabi jiifiga caalamiga badda cas 24 jiifi degmada Karabayr ee gobolka Sool.